sidaan bacdigeed mudanayaal iyo marwooyin sidaad wada ogtihiin madaxda dawladda galmudug waxaa la doortay 2 Febraayo 2020 taasoo macnaheedu yahay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay xilka kula wareegaan isla markaana caleemasaarkii iyo golaha wasiirada ku soo magacaabaan muddo ku siman 30 bari sida uu dhigayo qodobka 48aad farqadiisa labaad ee dastuurka dawlad goboleedka galmudug mudanayaal iyo marwooyin muddadaas 30 bari ee la siiyay macquul waa nagu noqon weyday inaan ku soo dhameystirno hawlihii naloo igmaday sababa jira awgeed oo ay ka mid tahay khilaafyo taagnaa oo ka dhashay doorashadii galmudug iyo arrimo kale oo badan sidaa daraadeed waxaan ku mashquulnaanay madaxweynaha xal u helidda khilaafyadii taagnaa iyo in aanu xalino tabashadii siyaasiyiinta naga soo horjeeday alxamdulilah maanta waxay noo maraysaa heer gabagabo 90% waa noo qabsoontay hawshii dib u heshiisiintii aan wadnay sharaf ayay ii tahay inaan mar labaad muddo bil gudaheeda ku soo hor istaago baarlamaanka sharafta leh ee doortay waxaana mar labaad gudoomiyaha iyo gudoonka iyo xubnaha baarlamaanka ka codsanaynaa in la siiyo muddo kordhin ku siman 31 Maarso 2020 muddadaas bisha ah waxaanu ku soo dhameystiri doonaa dib u heshiisiintii aan wadnay sidoo kale waxaan ugu dhici doonaa caleemasaarkii waxaan sidoo kale ku soo xuli doonaa gole wasiiro oo qiimo badan kuwaasoo aqoontoodu ay gaarsiisan tahay heer master degree galmudugna wax badan ka qaban doona mar labaad iyo mar saddexaad baarlamaanka sharafta leh iyo gudoonka baarlamaanka waa uga mahadcelinayaa dadaalkooda iyo shaqada qiimaha ay wadeen sidoo kale waxaan salaan uga sidaa madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug mudane Axmed Qoorqoor oo asaguna ku mashquulsan howlaha amniga iyo dib u heshiisiinta galmudug runtii shaqo fiican ka qabtay aad baa mahadsantahay